wafdi uu hogaaminayay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Wafdigan oo ay qayb ka ahaayeen wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa wafdigaasi lagaga hortagay degmada Qoyto oo 20 kiiloomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Burco. Soo dhaweynta wafdigan ay ka qayb qaateen maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco, mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer, cuqaal, salaadiin, haween iyo dhalinyaro iyo fartan lagu sharaxay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiye. Gudoomiyaha xisbiga kulmiye Badhasaabka gobolka Togdheer, maayirka degmada Burco iyo qaar ka mid ah odayaasha magaalada Burco oo hadallo soo dhaweyn ku qaabilay wafdigaasi markii ay soo gaareen goobtii loo qoondeeyay in ay kula hadlaan dadweynihii soo dhaweeyay ayaa abwaan huran walawal halkaasi ku gudoonsiiyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye Faras mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirro iyo golihii sare ee xisbiga hogaankii sare xisbiga kulmiye ayaanu halkan ku soo dhawaynaynaa degmada Qoyto oo ka tirsan gobolka Togdheer baan ku soo dhawaynaynaa iyo qadarin iyo wixii leedinku yaqaanay Burco ana maalintii dhawteed ka arkay iyo laba laabkeed baa ku soo dhawayseen aad iyo aad baa mahadsantiin waxa muujiseen cudud iyo taageerada u haystaan xisbiga ninba gabiyay gardariga Isyeelyeel ninkii garab u haystaale gorgor samada heehaaba iyo baalal gorayaal anigoo Maxamed Buraada oo odaygii degmada Burco ahay 50,000 baan jeebka ugu hayaa Muuse Biixi Cabdi 50,000 marka la faanayo waa laga faham badanyahay dhabta markay noqotana anuun baa lagu soo dawo faylaya. wasiirada duulista iyo hawada iyo hawlaha guud iyo gaadiidka ayaa u mahadnaqay dadkii soo dhaweeyay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa xisbiga siyar kumaana soo gelin waana asaasnay siyarna kaga bixi mayno ilaa iyo inta uu xisbigu jirayo 100 sano iyo taariikhdiisa jirayso maantana waxa weeye gobolkan iyo gobollo kale madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo way soo saareen maantana waxaynu soo saaraynaa mujaahid Muuse Biixi Cabdi soomaha waynu wada joognaa waxaan idin leeyahay kakacay kabakada yimi kakacay istiwaa geliyay war soomaha waxaan halkan aan ku odhanaynaa kaliya oo musharaxa madaxweynaha gudoomiyaha xisbigana xubnaha golaha wasiirada hoggaanka sare xisbiga ay u socdaan waa diiwaangelintii codbixiyayaasha. Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa ka dareen celiyay soo dhaweyntii ay u sameeyeen bulshada gobolka Togdheer. soo dhaweynta aad ilaa saaka iyo imikood urna tukaday aad taageerada cadceedda soo dhaweynaysan maanta aad baan idinka mahadnaqayaa anigu ayaa waxaan iska taagay Siiraayo oo markaa ka soo horjeedsaday Siyaad Barre waanu ku raacnay waanu ku dabagalnay صدقي سنة سعودي ما أنت نوكا مدحوينها إيشارحي إيساو قعدتها si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horeysay ee gudoomiyaha xisbiga kulmiye uu yimaado magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer tan iyo intii loo doortay musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye Shabcaan Cabdiraxmaan Abukar telefishinka caalamiga ah Somali News Burco.